dambeeyay ee ciyaaraha. aan ku bilownay in ka yar 24 saacadood ayaa ka dhiman doorashada xasaasiga ah ee xilliga dhexe ee dalka Mareykanka, waxaana labada xisbi ay ku jiraan ololahoodii ugu dambeeyay oo ay ku soo jiidanayaan taageerayaashooda si ay goobaha codbixinta ugu soo baxaan isla markaana ay codkooda u dhiibtaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay taageerayaashiisa xisbiga Jamhuuriga inay xajistaan maamulka labada aqal ee Koongareeska, iyadoo dimuqraadiyiintuna ay doonayaan inay qabsadaan labada aqal midkood. madaxweynaha ayaa isu soo bax qayb ka ahaa ololaha doorashada uu ka dhacayay gobolka Georgia, waxa uu taageerayaashiisa uga digay waxa dhici doona haddii xisbiga Jamhuurigu uu waayo aqalka Koongareeska. waxa uu yiri doorashadan waxay go'aamin doontaa inaad sii wado iyo in kale barwaaqada iyo baraaraha aan abuurnay, ama aan u ogolaano dimuqraadiyiinta mintidka ahi inay dhaawac weyn gaarsiiyaan dhaqaalaheena iyo mustaqbalkeena. madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama ayaa isna ku jeesjeesay Donald Trump, isagoo sheegay inuu Trump doonayo inuu caawiyo dadka caadiga kadib markii uu dadka maalqabeennada u saxiixay canshuur dhimis weyn. Obama waxa uu yiri in kastoo isku dayayaan inay waxyaalo kale ku mashquuliyaan, haddana way ku indhasarcaadinayaan. waxay leeyihiin fiiri baabuurta kolonyada ah ee dadka soo wada muhaajiriinta ah, haddana waxay canshuur dhimis u sameynayaan saaxiibadooda maalqabeennada ah. waxa ay sidoo kale dhaawacayaan daryeelka caafimaadka. qubarada siyaasadda iyo natiijooyinka ra'yi ururinta ayaa muujinaya in dimuqraadiyiintu ay haystaan fursad fiican oo ay dib ugu guuleysan karaan aqalka hoose. Berito waxaa la soo dooran doonaa 435 xubnood ee Koongareeska iyo 35 ka mid ah boqolka xubnood ee aqalka sanadka iyo sidoo kale 36 ka mid ah kontonka gudoomiye gobol ee Mareykanka. dhinaca gobolka Minnesota, musharaxiinta la filayo inay taariikhda sameeyaan waxaa ka mid ah Hodan Xasan oo la filayo inay maalinta berita ah doorashada dabadeed ku biirto aqalka Koongareeska ee gobolka Minnesota. Hodan Xasan oo la hadlaysay VOA ayaa waxay sheegtay inay xoogga saari doonto inay wax ka bedesho magaca ama fikirka qaldan ee laga haysto Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa warbixintan inoo haya. So thank you. Hodan Xasan waa gabar Soomaaliyeed waxaanay u tartamaysaa ka mid noqoshada golaha baarlamaanka gobolka Minnesota. Hodan in ay xildhibaan noqoto walbahaar badan kama qabto. rajadayda aad iyo aad bay u badan tahay in waxaan ku soo guuleystay mar August bishii 8 aan ka soo baxnay xisbiga dimuqraadiga isreebkiisii. so xisbiga dimuqraadiga ana matalaya kursigan waxa ila tartamayeen nin xisbiga Jamhuuriga ka socda, laakiin xaafadan waa xaafad ay dimuqraadigu aad ugu badan yihiin, 90% dadka degan waa dimuqraadi. marka rajadaydu aad iyo aad ay u fiican tahay. doorashadani waxay kicisay dareenka dad badan oo Soomaali iyo Muslimba oo xil isku soo taagay, sida ay noo sheegeen waxa hurdada ka soo jafay oo ku dhaliyay in ay kursi u tartamaan waa siyaasadaha ay ku tilmaameen kuwa qalafsan ee ka dhanka ah muslimiinta, Soomaalida iyo guud ahaanba soo galootiga. Hodanna kuwa ayay qayb ka tahay inaan noqdo cod ka dagaalama dhibaatooyinka dadka lagu hayo dhinacay dooniba haata ama ha ka ahaato immigrationka dhinaciisa ama ha ahaato dhinaca guryaha ama caafimaadka ama iskuulada. dadka aan yani u nasab sheegto ciriiri far badan bay ku jiraan, wax la ciriirigaas armaad wax ka qabataa. marka laga soo tago difaaca dadka ay matasho, Hodan waxa ay doonaysaa in muuqaalka laga haysto bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan ay baabi'iso, isla markaana ay banaanka keento wajiga dhabta ah ee Soomaalida sida ay noo sheegtay. dadka yani tuso dad waxa ay naga aaminsan yihiin inuusan run ahayn, inaan dad wanaagsan nahay, nabadda jecelnahay, aan jecelnahay inaan dadka si wanaagsan ula dhaqano, aan jecelnahay horumarka Minnesota iyo xaafadaha aan deganahay. Hodan Xasan waa 37 jir, Mareykankana waxa ay timid 20 sano ka hor. waxa ay hore uga soo shaqaysay howlo la xiriira adeegga bulshada. inkastoo wadan dhinaca dimuqraadiyadda ku horumaray ay joogto, haddana waxa ay noo sheegtay in ay soo martay caqabado ku salaysan gabarnimadeeda, diinteeda iyo midabkeeda, waanay ka soo talowday. gabar baan ahay soo ama community-ga ha ahaata ama ha ahaadaan mainstream community-ga wali dumarka siyaasadda inay
aad ugu bisil yihiin dadku ma aaminsana waxaan xusuustaa markaan bilaabayay markii ugu horeysay dhalinyaro Soomaaliya wiilal ay la tartamayo in badan baan maqlay dadku dhahay wiilasha ma iska tiisido adigu aad ka hartid wiilasha iyo waxay isla tartamaane mainstream ka iyo dadkan kale la deganahayna yani gabar xijaab qabta still wali lama yani kama dadegin marka laga hadlayo bulshada wadankan loogu yimid ee ay ka dhex tartamayso waxaa jira fariimo qaloocan oo dhankooda kaga yimaada kuwaasoo nuxurkoodu uu yahay islaam nacayb iyo soo galooti faquuq inkastoo doorashada ay saacado kooban naga xigaan haddana hodan iyo taageerayaasheedu waxa ay bulshada gobolkan iyo magaaladiisa Minneapolis ku dhaqanba ka dhex wadaan olole ay ku doonayso in ay dadku berrito soo baxaan oo ay codkooda dhiibtaan waxay si aan kala go' lahayn u garaacaysaa albaabada waxaanay dadka weydiisanaysaa in ay u codeeyaan iyada iyo xisbiga ay ka mid ka tahay dadku aad bay wallahi u xiiseynayaan marka albaabka garaacdid ama ajnabi ha ahaadaan ama Soomaali ha ahaadaan dadku su'aalo fara badan bay qabaan oo siyaasadda ku saabsan adiga meesha ka taagan tahay waxyaalaha qaarkood baa lagu weydiinayaa maxaa waxbarashada ka bedelaysaa maxaad ka bedelaysaa yani kala qaybsanaantan iyo nacaybkan iyo waxan soo kordhaya ilaa 6 qof oo Soomaali ah ayaa u tartamaya kuraas kala duwan oo isugu jira heer gobol iyo mid federaal waana doorashadii ugu horeysay ee ay tiro Soomaali ah oo inta la eg mar kaliya isku soo taagaan Jafar Kukai VOA Minnesota haatan arrimaha doorashada xasaasiga ah waxay la falanqeynaya oo aan jeclahay inaan wax ka weydiiyo ugaas Cabdicasiis ugaas Xasan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga garabkiisa gobolka Minnesota ugaas Cabdicasiis adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya marka hore waxaad iga warantaa ururkiinan jamhuurigu xilligan gobolka Minnesota haddaan qaasatan kaala hadlo waxa uu ka mid yahay meelaha ay sida aadka ah ugu loolamayaan oo doonayaan kuraasta gobolka iyo waliba ka gudoomiyahaba inay ku guuleystaan rajadiinu intee la egtahay مساعد ولا أد ما صنتهاي رجال حزب الجمهورية استيت كمينيسوتا أد بوفي عن تهاي دلالك أد بوفر بدنيا هاي ترتم كنا وهذا هاي إنك صدمات ونا أد بزال هايان لبضع أقل هاوس كي السنة كبا جمهورية هايستا وحن يهدنا وحن كو ترتمنا إن إنه جوفرنر كهلا يأتوني جنرال كا وإنه قطع مينيسوتا مركي هو الرئيسي إنتبه صدق البرانشي government ودن كبا أي قبطان حزب الجمهورية laakiin waxa la leeyahay way adag tahay xilligan inaad mar kale aqlabiyada aad sheegayso inaad ku guuleysataan aad heshaan cabsi mid ka jirta halka cabsi badan nagama jirto meesha tartan ma socda kulay berita wax la cadaan doonaan laakiin dadkii saad u taqaanaba sidka Minnesota Soomaalida aad ma fahmayaan labada county ugu waaweyn ee degan yihiin ee Hannibal County iyo Ramsey County bay ku badan yihiin xisbiga dimuqraadigu Greater Minnesota aad aragtay inta badan waxa ka yimaada waa wada Republican waxyaalo badan oo muhiim u ah state-ka oo hadda ay dadka wadanka degan ay fahansan yihiin oo muhiimna way jiraan marka rajadu way fiican tahay cabdaas waxa jirta xisbiga Soomaali baa tahay waxaad ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga gobolkana waxaan ognahay Soomaalidu inta badan waxa ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga waliba haatan iyaga xilal u tartamay oo lagu doortay marar badanna waxa Soomaalidu rumaysan yihiin in jamhuurigu aanu soo dhaweynin Soomaalida iyo Islaamka oo nacayb fara badan waxyaabaha uu ka jiro adinku maxaad xisbiga jamhuuriga ku aragteen walaal arintaasi waxba ka jira maxay yeelay Soomaalida inta badan dareen bay qabtaa horta markii waxaan u hambaleynayaa Soomaalida xisbiga dimuqraadiga u tartamaysa kuraas ku soo baxaysa waana guul noo soo hoyta anaga laftiganaga hadaan Soomaalida Republican nahay macnaheedu ma aha inaan ka tagno Soomaalinimadii danteena iyo bulshadan ka mid nahay laakiin waxa meesha ka maqan wali Soomaalidu qayba aysan miisaaniyada wadanka ama qaabka uu wadanku yahay meel aan ka fahmin baa jirta maxay yeelay dad waxaan nahay dhaqan leh family qoysaska qiimeyn haya waxyaalo badan oo muhiim noo ah baa jira marka wixii inay kala fahmaan way labada xisbi horta waxa uu kala yahay waxaan filayaa Republicanka aad uma yaqaanaan waa loo soo laakiin Cabdicasiis aqoon hadii laga tago iyaga ku qayliya Republicanku sida Soomaalidu ay rumaysan tahay ma doonayno muslimiinta Soomaalida ma doonayno wadooyinka mararka qaar waxa lagu yiraahdaa dalka lidka celinaya
islaam nacaybka iyo waxyaaba fara badan ilaa iyo marka laga soo bilaabo madaxweyne Trump markuu gobolka Minnesota yimid Soomaalida sidoo uu weeraray dadku waxa ay rumaysan yihiin inta badan xisbiga jamhuurigu inaanu dadka soo galootiga soo dhaweynaynin aragtida maxaad ku difaacaysaa walaalow arrinta horta waxba lagama qaban karo maxaa yeelay shakhsiyaad Republican oo shakhsi ah oo nacayb ku jira way jiraan dadka aadamiga nacaybka ku jira Soomaali u tilmaamayna in wax la naco iyada dhaqankeedu kooban yahay inay iskala qaybiyaanba wax dabeecad la qarin kara ma aha laakiin xisbiga Republican ku taariikhiyan wadanka Mareykanka wax ka bedel waa isaga hadii noqoto xilligii Abraham Lincoln ugu dambeyn hadda Trump waa exceptional ba markii la fiiriyo Bush oo ka horeeyay Obama ummadda Soomaalida iyo ummadda ama muslimiinta ama Africa wax badan buu ka qabtay marka shakhsiyaad Republican oo cadaan oo cunsuri oo bias way jiraan laakiin ma matalaan principle-ka xisbiga iyo qaabka inuu ramo inuu ugu badbaadno wadankan qaab ilmaheeni baa jooga inagii baa joogna wax walba la isku ma raaci karo inteeba inaga dan noo ah inaan fiican dhinaca kale ma filahayo inaan ku sii jiri doono haddaan ku sii jirana bulshadeenu wax badan kama saari doonaan waa gartay laakiin cadeymaha muuqda waxa kamid ah Cabdicasiisow in Soomaali badan ay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa iska sharaxeen xilal loo dhiibay Ilhan Cumar oo ugu dambeysana la filayo in ay golaha guud ee Congress-ka ay ka mid noqoto waliba Donald Trump oo Soomaalida xadiday inay dalkan yimaadaan inay hor fariisato iyadoo qof la soo doortay goorma la gaarayaa dad jamhuuriyiin oo Soomaaliya oo xisbigeenu ka soo dhaxbaxa arrintaas waan u hambaleynayaa Ilhan waana arrin sharaf annaga xitaa noo ah waana laakiin suuxaad kala xasuusta walaalow Soomaalidu waxay u fara badan tahay kawniyada ay degan ay ka istaageen waa meeshan ay Soomaalida u badan ay degan yihiin laakiin xisbiga Republican-ka Soomaaliya way ku istaageen dhowr jeer bay ku istaageen haddana way ku istaagi karaan waana waxaan u baahanahay in Soomaalida wax garadkeedu bal inay wax miisaamaan waxba laga madido wadankii ma naqaano waynu ku cusubnahay yaa inoo sheekay aqli ma aha hadii inta lagu sheekeeyo awlaadii iyo ilmihii iyo dhaqankii iyo iimaankii oo dhanba laga xado maxay ku tari nimankan kale way waxa ugu weyn dhigi kartaa way inacbiin yaa adduunka isjecelba anu waxaan rabaa inaan nolosheedii ciise shartiga banaanka la iita aniga la ii daayo jiritaankii anu aan samaysto nimankan marka wax inaga muhiimadeeni guud baa dhimanaysa in yar oo qurxina oo fiican xaq oo ba iska taala laakiin marka Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay waxa xiriyaan waana gaari doonaan waxa yeelay haddaan ku weydiiyo su'aal adiga iyo Soomaalida ku saabsan oo si shakhsiyana loo dhigi karo dabcan Soomaali baa tartamaysa xisbiga dimuqraadiga baa ka tirsanaadeen dad muslimiin ah tartamaya islaam nacaybka iyo heerka uu marayo waad ogtahay adiga laftaada ii sheegay in aad madaxweyne Trump iyo siyaasadiisa aad diidantahay walow aad jamhuuri tahay haddana ma u codeynaysan qof Soomaali ah oo tartamaya markaad aragtaan ma qofka jamhuuriyaad kaga codeynaysan ma Soomaaliga codka siinaysan arrintaas waa arrin su'aal aad u qiimo badan weeyaan waa Soomaali aan jeclayn Soomaalida dhigaheeda furan maxaa yeelay qaraabada waxa loo yaqaanay way ka duwan tahay saan ku soo koray waaga hore qaraabada waxay jiifo qofka isu xigtaan ama ay noqoto hadda qaraabadu waa qofkii dantaada iyo maslaxadaada iyo jiritaankaaga muhiimka u ah marka Soomaaliga aan ku kala tagnay ilmahaygu inay sii jiri doonaan waxa iiga sokeeyo qofka ilmahayga inay ila badbaadaan aan aaminsanahay waxa waa in fikirka lagu heshiiyo marka hore intaan talaabada la qaadin marka nooca qabyaalada ah macna Soomaali bay u sameyn weyday adduunka naga horeeyna way u sameyn weyday marka ra'yiga koobaad baa lagu heshiiyaa markii la soo dhaafaa ka bacd waxa talaabada wada qaada yani waxaad aad ugu soo celcelinaysaa qofka aan hanaanka iyo qaabka ilmahan u korinayno aan ku heshin weyn maxaad ka hadlaysaa markaa sida leedahay waxaan ka hadlahayaa waxa muhiim ah iskuulada hadda Mareykanka waxa qof kasta yaqaan waa Prison Pipeline baa la waa meesha ciyaalka dadka kalarka ah ilmaha markuu la 10 jir gaaro lagu bilaabaa taabasho iyo gujin si uu iskuulka uga cararo markuu 14 jir gaaro banaanka waxa uu tagan booliiskii iyo baalkii xabsiyadii baa sii soo haya dhaqankaasi kama yimaadada Republicanka qof walba dib ha u raaco wadadka inta badan ay leeyihiin marka waxay u doonayaan Republicanku school of choice dadka in future la siiyo oo adigu aad geystay iskuulka aad doonto dhaqankii iyo diintii baa daran guurkii baa kamid ah anigu Soomaalida nooca reemiga asalkeedu yahay baan ahay mar jeceli in akhlaaqdeeda iyo dhaqankiga iyo reerkiga la idamaro cidii ilbaxnimo u arkaa taas u taala marka ummadda masuulka ahna waan u sheegaya marka waxyaalo badan oo dadkii wadanka deganaa ee xitaa gaalada ahaa ay ka cararayaan
bal soomaalida xaggooda loo caydhinaya wada xitaa dhigi karin wax ka socotaa aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa ugaas cabdixasiis ugaas xasan oo iiga warramayay xisbiga jamhuuriga uu ka mid ka yahay iyo doorashadan rajada ay ka qabaan iyo weliba Soomaalidu sida ay xisbiga jamhuuriga uga mid ka yihiin